السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول ملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. ولا ليال وادين وذا السلام جيبجينا ملك استأجوتان ضل يدبر ملك استأجوتان وادين وذا السلام. ما أنت وحن دنيا إن كرشة كيو تاريخ أنت بدن مجد للجليه. تاريخ ذا سؤال تاريخ واضحة وفصيحة أو أنا سنة بكو قرسمي كريم. وتاريخ حقه إن لقيسه كيو. وتاريخ مدن إن لقيسه كيو. ودليردين الله شيء. ودليرد وفرها هرمرك دلك. فري هرمرك دلك هدوسن تاريخ دي دلك أوسن هيسنين. وأذكتها سيء دلكي كهر مري البابدي هرمرك سيء فرفرو. البابدي هرمرك فرها كان فرايا وأقونتي بيكمتها تاريخ دو. وايو تاريخ الواحد الله برتسيده دبا وحي شلي قلدمي إن ما أنت لو صح أيا الله برتا تاريخ له. وحي شلي هجاج واي ورمحي وهجاج وايين وحاي وحابي وهجاج وايين واي بل هذا بوحي هجاج وايين عن صحنه ووحي هجاج لهايين عن قبنه سي مستقبل كله جارو هرمر عفمات قبة ترانسبارنت وعدول بس كده حركيسه عدول بأركيسه ووحول باللقاء حركايه وحي سن وحي حنبا وحا حنا لا iska qaban doono wixii sanna la dhiirigelin doono taariikhdan maanta aan ka sheekayn rabo waxay tahay taariikhdii halgamaagii nasiib buunde magaciisa runta waxa la yiraahdaa ee la oran jiray mar walba makaanjile waa magaciisii dhabta ahaa magacaana waxa lagu ogaaday kadib markii eedadiisa ay sheegtay sababtoo ah qoyskoodii waxaa laayay qabiil kale ayaa laayay kiyo ilmo ah oo wili yar iyo eedadiis unbaa ilaahay ka badbaadiyay dilkii qabiilka kale ku soo qaaday suldaan kale ayaa yimid ee hiilo ugu yimid suldaankii markaa buu inankii yaraa soo qabtay eedadiisu arkay misna eedadii ayaa sheegtay ninkan makaanjila la yiraahdaa heblaaya dhashay hebel baa dhalay makaanjile wuxuu ka dhashay qolooyinka loo yaqaan ee koonfurta Soomaaliya dega waliba jubbooyinka dega mushingiliga loo yaqaan ayuu ka dhashay mushingiliha ahaade wuxuu ka sii dhashay qolada la yiraahdo miyawa waa qolooyinka ayagana ugu waaweyn dadka inta badan waxay yaqaanaan ay garanayaan shambara ay garanayaan lafta la yiraahdo oo ay si yiraahdaan ayada ugu weyn miyawa laftigiisu waa laf kale weyn asna mushingiliga ka tirsan waaya makaanjile waxa koriyay suldaankii baa koriyay wuu weynaaday wuxuu ka dhigtay amaanduul ayuu ka dhigtay amaanduul amaan iyo duulaan iyo amaan la isku daray weeyaan ereyga waa laba erey la isku daray ayuu ka dhigtay wuxuu arkay dagaal badan oo lagu qaadayo Talyaaniga inuu ku guuleystay ayuu arkay asagoo aad dhalinyaro u ah Talyaani jubbooyinka uu ka soo agdhawaan waayay agaarkoodu uu imaan waayay uu soo gali waayay gees walba iskaga dayay markaba xataa inuu ka soo raaco oo samaysto meesha la yiraahdo goobweyn ee uu ku yimaado ilaa baar dheer uu ku yimaado si uu gasho u soo galo way u suurtoobi weysay Talyaani maraakiibta uu samaysta xataa wuxuu ku jabay meesha la yiraahdo markabley wuxuu ku taalaa baar dheer ay ku taalaa markabkaasi maxaa jibiyay meesha ku jibiyay waxaa jibiyay halgamaagii nasiib buunda ayaa halkaas ku jibiyay aad bay u balaarneed dhulkii uu maartay ka talinay nasiib buunda ee Talyaanigu uu diiday inuu soo galo jubbooyinka koonfurta jubbooyinka haddaba dalka waxaa loo soo diray markii dambe laba nin oo yahuud ah
وأصل كود يهودية أي الله صادره waxay ka soo galeen dhanka iyo Yemen bay ka soo galeen labadani waxay ka soo galeen dhanka iyo Yemen bay ka soo galeen waxa la kala oran jiray Abdou Ben Brek iyo Salah Ben Brek Abdou Ben Brek iyo Salah Ben Brek waxay degeen magaalada Jilib ayay degeen oo ahaa saldhigii ugu weynaa ee Nasiib Bunde uu ku lahaa dalka magaalada Jilib markay degeen lacag waalan oo fara badan way wateen xoolo fara badan ay wateen dahab bay wateen lacag badan bay wateen dhul badan oo dhul beereed ay iibsadeen ayay samaysteen shaqaale badan ay deegaanka ka qorteen oo u shaqeeya beeraha ka shaqeeya dukaamo badan ay ka fureen Jilib iyo Jamaama meel walba ay ka fureen shaqaale badan ay sameeyeen macnaheedu maxay tahay dadkii bay isjeclaysiiyeen dadkii bay soo jiiteen Abdou Ben Brek magaca hore baa ka ah magac Carbeed Abdou Ben waa magac Yahuuda Benjamin Netanyahu Ben Gurion waa magac Yahuuda Brek waa magac Yahuuda Ehud Brek oo kale مثلا laakiin Soomaalida ma fiirinne magaci hore baa la eegay Abdou Ben Brek Abdou Ben Brek waa nin wanaagsan yaa ka wanaagsan ma sha Allah baariiso shaqo naga siiyay oo baba dukaamkiisu shaqo naga siiyay xoolihiisu nagu aaminay maxaa ku jira wax badan Salah Ben Brek kadalika marka magacyadan ay wataan waaba magacyo aan jirin oo foo ah macnaha false ah oo aan jirin leen way samaysteen waa loo ogolaaday waa laga aqbalay dadkii ay isku dhaxirigeliyeen niman Arab inay yihiin iska dhigeen Soomaalida inta badan jaahiliin bay ahayd xilligaas waa la iska ogolaaday Ben iyo Brek iyo inay Yahuud yihiin ma la oga Salah baa la raacay Abdou baa la raacay waa Arab baa la yiri dadkii bay la tukadaa dadkii bay maartay waxay sameeyaan bay la sameeyaan way taakuleeyaan lacag badan ku farqaan Nasiib Bunde laftigiisa ay dhowr goor waxay u geeyeen lacag badan hanti badan oo taakula ah iska dhici cadowga naga celi khayr Allah ku siiyo cadowga naga qabo dahab bay u geeyaan beeray u xayuusiyaan beer dhan bay siiyeen shaqaale gisho adaa iska leh hanti kale siiyaan sidii loo joogo hanti ay u geeyaan talyaaniga iska qabo qori soo gado way hubayeen waxay ka dhigeen heer sare ka dhigeen oo aanba loo soo gali karin talyaaniga dhowr sanadood waa laga nasay amaan buu siiyay ninkan inuu gali karin oo arkay Nasiib Bunde ninkan saan u taakuleeyay oo ciidamadiisa gaarsiiyay inuu talyaaniga geeyga uu soo galay aad u jeclaysto wiil ka dhigo isii gabadhiisii ayuu siiyay gabadh uu dhalay ee la yiraahdo Faaduma Makaanjile ayuu siiyay ku daray ku nikaaxay way isku guursadeen halkaas Faaduma waxay u dhashay wiil bay u dhashay ninka la yiraahdo Abdou Ben Brek Abdou iyo Nasiib waxay noqdeen wiil iyo aabihi wiil iyo sodonkiisa ayay noqdeen markan oo iskaga soo dhawaadeen intii hore wala isdhex galay intii doonayeen waaba intaas mishinkoodu wuxuu ahaaba inay dadka dhex galaan isku dhex diraan isku dhex milaan ee aanan laga garan sinaba aan looga garan ay ahayd mishinkoodu wuu hagaagay wuu fulay mishinka koowaad ee ugu weynaa kan buu ahaa waxa beerahaas iyo hantidaasi waxba kuma dhisneen mishinka ugu weyn kan buu ahaa si wanaagsan la isku dhex galay maxay u socdaan marka waxay u socdaan in Nasiib la soo qabto Nasiib marka maxaa lagu soo qabanaya ujeedadooda ma aha Nasiib talyaaniga u gacan galiye kama aha ujeedadoodu waxay tahay maxay tahay Nasiib wuxuu haystaa dhagaxyada qiimaha faraha badan leh ee aan laga helin adduunka oo dhan ayuu haystaa dhagaxaas xaq uu ku wataa wuxuu ku haystaa
saynta lo'da ee gacanta uu ku haysto ayuu ugu dhex jiraa ayuu ku dhex qarsan yahay timaha meesha le saynta lo'da saynta lo'da ma dhigo dagaal markuu aadayo markuu magaalada soo galayo saynta gacanta ku haystaa dhagaxaasa ugu jira oo qaaliga ah nimankan ujeedo kale ma laha waxa hantidan ay u farqayeen waa dhagaxaas siduu gacantooda ku soo gali lahaa ujeedo kale ay ka leeyihiin ma leh